Uganda waa dalkii ugu dambeeyay ee heshiis ku saabsan musaafiriinta la gala Mareykanka iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu xoojiyay qorshihiisa muranka badan dhaliyay ee dalka looga musaafirinayo muhaajiriinta sida sharci darrada ku jooga Mareykanka. Bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Uganda Khamiistii, Kampala waxay sheegtay in ay ogolaatay in Washington ay soo dhoofiso dadka ajaanibta ee aan doonaynin in ay ku laabtaan dalkoodii hooye balse wajahaya musaafiris iyo sidoo kale tarxiil ka imaanayo Mareykanka. Wasaaraddu waxay sheegtay in heshiiskaasi lagu galay qodobo kala duwan oo ay ku kala bedelanayaan dawladahan. ururada xuquuqda aadanaha iyo qareenada sharciga ayaa cambaariyay qorshayaasha muranka badan dhaliyay ee Trump oo lagu musaafirinayo malaayiin muhaajiriin sharci darrada ku nool Mareykanka kuwa oo horey looga musaafiriyay dalalkoodii isla markaana la geeyay wadamo cusub. waxaana ka mid ah dambiilayaal la xukumay kuwa aqalka cad uu ku tilmaamay in ay yihiin dambiilayaal falal waaweyn oo ka dhan ah sharciyada Mareykanka galay. dalal Afrikaan ah oo ay ku jirto Eswatini oo horey loogu yaqaanay Swaziland ayaa aqbalay heshiiskan la midka waxaana la sheegay in bedelkiisa ay ku bedesheen canshuur dhaafis. Mareykanka waxa uu ku dhaqmaa siyaasad faa'iido raadis oo qaaradda u aragta meel lagu shubo qashinka, ayuu yiri mid ka mid ah dadka ka tirsan xarunta dacwadaha Koonfur Afrika, isagoo intaa ku daray in Washington ay si gaar ah u bartilmaameedsanayso dalalka xuquuqda aadanaha daciifka ka ah dhanka xuquuqda. bayaankan uu Khamiistii ku daabacay barta Twitter-ka, Bagire Vincent Waiswa, xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Uganda, ayaa sheegay in dalka uu la galay Mareykanka heshiis ku meel gaar ah, ma sheegin waqtiga ay musaafiriinta bilaaban doonto ama xilliga ay ku ekaan doonto. waxaa jira shuruudo la xiriira dadka la wareejinayo ama laga tarxiirayo Mareykanka ee la gaarsiinayo dalka Uganda sida lagu sheegay bayaankan oo ay ku jirto in Uganda aysan aqbali doonin dadka dambiilayaasha ama carruurta aan la socon waalidiintooda, isla markaana ay doorbidayso in Afrikaan loo soo wareejiyay qaybo ka mid ah heshiiskan. bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa xaqiijiyay in madaxweynaha Uganda Yoweri Kaguta Museveni iyo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ay wada yeesheen wicitaan ku saabsan socdaalkan ganacsiga isdhaafsiga ku saabsan iyo xiriirka ganacsi. ku dhawaaqista heshiiskan waxay timid kadib toddobaadyo hadal heen ka abuuray saxaafadda gudaha Uganda, taasi oo lagu soo daabacay in dalalka bariga Afrika ay aqbali doonaan muhaajiriin laga musaafirinayo Mareykanka. Arbacadii wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa beeniyay wararka baraha bulshada qabsaday oo sheegay in Uganda aysan haysan xarumo lagu hayo dadka la musaafiriyay. isagoo la hadlayay wakaaladda wararka AB, waxa uu sheegay in Uganda ay kala hadlayso Mareykanka arrimo la xiriiro fiisayaasha, canshuuraha, cunaqabateynta iyo arrimo kale oo aan la xiriirin socdaalka, buu yiri. bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda Khamiistii ma uusan sheegin waxa Uganda ay bedel ahaan u heli doonto. dalal kale oo ay ku jirto Eswatini ayaa la sheegay inay aqbaleen muhaajiriin laga musaafiriyay waddanka Mareykanka isla markaana ay ku bedesheen canshuur dhimis. Uganda waxaa lagu soo rogay 15% canshuurta badeecooyinka soo gala Mareykanka oo ay soo dhoofisay Uganda, qaybo ka mid ah dalagyada iyo sidoo kale canshuuraha siyaasad-marneed ee Trump oo uu markaasi ku soo rogay wadamo kala duwan. mas'uuliyiin sare oo dawladeed ayaa horaantii Agoosto u sheegay saxaafadda gudaha in canshuurahaasi ay carqaladeyn doonaan dhoofinta Uganda, gaar ahaan qaybta beeraha, isla markaana Kampala ay gashay wadaxaajoodyo heshiiskaasi ku saabsan. kafeyga, vanilaha, digirta iyo qaar kale oo ka mid ah alaabta batroolka ayaa ka mid ah dhoofinta muhiimka ee Uganda ay u geyso Mareykanka. Kampala waxay si gaar ah u daneynaysaa kor u qaadista dhoofinta kafeyga si ay ula tartanto alaab qaybiyaasha waaweyn sida Colombia. dhanka kale Mareykanka waxa Uganda u dhoofiyaa mashiino sida mashiinaha markaasi lagu rakibo diyaaradaha, kuwa Uganda markaasi ku soo rogtay 8% canshuuraha markaasi lagu soo qaado alaabahaasi. Mareykanka iyo Uganda taariikh ahaan waxay lahaayeen xiriir wanaagsan oo saaxiibtinimo leh, iyadoo Mareykanka uu si joogto ah u gaarsiin jiray dalka Uganda gargaar bini'aadanimo. hase ahaatee kadib markii Uganda ay ansixisay qalinkan ay ku dugtay sharciyo ka dhan ah galmada dadka isku jinsiga sanadkii 2023, xiriirkii waa uu xumaaday. Mareykanka ayaa ku eedeeyay Uganda in ay ku kacday falal xadgudub ku ah xuquuqda aadanaha. sharcigana waxa uu markaasi dhigayaa ciqaab oo ay ku jirto xabsi daa'in, in sidoo kale la xidho qaar ka mid ah dadka leh xiriirka isku jinsiga ee loo yaqaano LGBTQ. Washington waxay intaa ka dambeeyay waxa ay jaratay maalgelinta barnaamijyada taakuleynta dawooyinka HIV/AIDS-ka. waxay soo rogtay xayiraado fiisa oo ka dhan ah mas'uuliyiinta Uganda ee lagu eedeeyay in ay ka qayb qaateen wiiqista hanaankan dimuqraadiyadeed. sidoo kale Mareykanka waxa Uganda ka mamnuucay barnaamijka ganacsiga ee African Growth and Opportunity
kaasi oo u sahlayay dalalka Afrika inay ku ganacsadaan Mareykanka iyadoo canshuur la'aan ay ku tagayaan halkaasi, balse canshuuraha Trump ayaa si weyn markaasi u joojiyay qaybo ka mid ah waxyaabahaasi. Bangiga Adduunka oo sidoo kale 2 sano ka joojiyay Uganda deynsiinta inkastoo xayiraadaasi laga qaaday imika bishii June aynu ka soo gudubnay. Difaacayaasha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in heshiiska muhaajiriinta uu keeni karo in maamulka Mareykanka uu si wanaagsan ugu arko Uganda balse ka baxaya dhibaatada dadka la musaafuriyay. Uganda waa dalka Afrika ugu weyn ee martigeliya qaxootiga. Waxa uu horey u martigeliyay in ka badan 1.7 milyan oo qaxooti ah badankood ka yimid Koonfurta Suudaan iyo sidoo kale Suudaan iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, kuwa oo dhammaantood wadamadooda uga soo cararay sabab la xiriiro dagaallo iyo qalalaasa halkaasi ka jiro. Qaramada Midoobay ayaa horey dalkaasi ugu amaantay inuu leeyahay siyaasad qaxooti oo horumarsan, isla markaana siyaasaddaasi ay saldhig u tahay albaab furan oo lagu qaabilayo qaxootiga. Si kastaba ha ahaatee, mucaaradka siyaasadeed ayaa qayladhaan ka muujiyay rikoorka xun ee dowladda ay ku leedahay dhanka arrimaha xuquuqda aadanaha. Uganda waxaa xukumaa Museveni tan iyo 1986. Xisbigiisana waxa uu ku guuleystay doorashooyin lagu murmay oo guulo waaweyn markaasi lagu soo hoyay. Xubnaha mucaaradka iyo suxufiyiinta ayaa inta badan lagu beegsadaa qaar ka mid ah doorashooyinka, isla markaana qaarkood la kulmaa xarig. Qaarna waxay sheegeen in jirdil ay kala kulmeen xisbigaasi. Xilli uu la hadlayay AP, xildhibaan mucaarad ah ayaa sheegay in heshiiska Mareykanka uu siin karo dowladda Museveni sharciyo dheeraad ah oo reer galbeedka ka hor doorashada guud ee loo qorsheeyay bisha Janaayo 2026. Heshiiskan waxaa loo galay in lagu nadiifiyo sawirka dalka Uganda maadaama aynu gaarayno buu yiri 2026 doorashada dalkaasi Uganda. Mareykanka waxa uu ku baaqay in uu iska indhatirin arrimaha xuquuqda aadanaha ee dalka Uganda. Eswatini, Rwanda iyo Koonfurta Suudaan ayaa heshiisyo la mid ah kuwaasi la galay Mareykanka. Dalka Eswatini bishii Luulyo waxay aqbashay 5 nin oo aan magacyadooda la shaacin kana yimid Vietnam, Jamaica, Laos, Cuba iyo Yemen, kuwa oo intooda badan laga soo tarxiilay dalka Mareykanka. Ku-xigeenka xogeyaha waaxda arrimaha gudaha ee Mareykanka ayaa ku tilmaaminayeen dad si gaar ah Mareykanka uu ugu daray liiska qadka cas oo ay intooda badan diideen dalalkoodii, waxaana ay ku dartay in lagu xukumay dambiyo kala duwan oo ay ka mid yihiin kufsiga carruurta ilaa dilalka. Waxaa lagu xukumay xabsi u dhaxeeya 20 sano. Raggaasi hadda waxaa lagu hayaa xarumaha xabsiyada waxaan lagu celin doonaa dalalkoodii sida ay sheegeen mas'uuliyiin aan shaacin waqtiga. Dhaqdhaqaaqayaasha ayaa ku eedeeyay dowladda Eswatini inay heshiiskaasi ku gashay iyagoo ku bedeshay canshuur dhimis dhanka Mareykanka. Dalkan yar oo dhoofsada dharka, miraha, lowska iyo sonkorta ciriinka ayaa lagu soo rogay canshuur 10%. Koonfur Afrika oo 3 dhinac la wadaagta xuduudda Eswatini ayaa bishii Agoosto u yeertay diblomaasiyiinta dalkaasi yar si ay uga wada hadlaan walaaca ammaanka ee heshiiskaasi. Sidoo kale Mareykanka waxa uu 8 dambiile ugu diray Koonfurta Suudaan bishii Luulyo, waxaana ay sheegtay wakaaladda dalkaasi Suudaan in ay qaar ka mid ah dadkan ka yimaadeen Cuba, Myanmar, Vietnam, Laos, Mexico iyo Koonfurta Suudaan, waxayna ku nuxnuxsadeen inay galeen dambiyo ay ka mid yihiin dilalka heerka koobaad, dhaca, ka ganacsiga daroogada iyo kufsi. Raggan waxaa markii hore lagu hayay ama lagu hakiyay Djibouti bilooyin intii lagu guda jiray xilligii dhoofinta caqabado sharci oo Mareykanka ka jiray. Si kastaba ha dabiiqadii June, maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa ogolaatay in loo wareejiyo Koonfurta Suudaan. Rwanda oo sidoo kale waxay xaqiijisay in ay aqbali doonto 250 qof oo laga musaafuriyay Mareykanka waqti aan la cayimin. Sida uu sheegay afhayeenka dowladda dalkaasi, dadka la musaafuriyay waxay heli doonaan tababar shaqo, daryeel caafimaad, hoy iyo sidoo kale daryeel tiro badan. Dalkaasi oo qaarkood horey heshiis muran badan dhaliyay la galay boqortooyada Ingiriiska lacag ahaan. Si kastaba ha heshiiskaasi ayaa fashilmay kadib markii xukuumadda Labourka ama xisbiga Labourka cusub la doortay sanadii 2024. Meel ka baxsan Afrika, El Salvador ayaa aqbashay 300 oo muhaajiriin badankood ka yimid Venezuela. Lacag dhan 6 milyan oo dollarka Mareykanka ayuu ku aqbashay. Costa Rica waxay aqbashay 200 oo ka mid ah dadka Mareykanka uu soo ceeriyay magangelidoon oo ay ka mid yihiin Afghanistan, Shiinaha, Ghana, Hindiya iyo Vietnam. In badan dib ayaa lagu celiyay dalkooda, hase yeeshee ilaa 200 aan iraahday 28 qof ayaa weli xabsi ku jiray bishii June. Lama ogo waxa Mareykanka uu ka siiyay bedel ahaan. Ku dhawaad 300 oo qof oo ka yimid dalal ay ka mid yihiin Afghanistan, Pakistan, Iran iyo Shiinaha ayaa loo diray Panama bishii Febraayo. Inta ayaan ku soo gabagabeynayaa
maqaalkeena maanta oo aad ka dheehanayseen warbaahinteena Manfac TV. fadlan subscribe inoo saar channelkan, like gare muuqaalkan, la share gare asxaabtaada, sidoo kale qaybta faallada iyo community-ga aragtidaada inoogu reeb. waad ku mahadsan tahay la socoshada iyo dhugashada warbixinteena.